nabaday daawadayaal idin ahaantiiba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii dalka iyo dawladooda oo doorkan aanu ku soo qaadanayno jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Belgiumka oo ka dareen celiyay bal sida ay u arkaan habka ay u shaqeyso dawladda Soomaaliland iyo horumarka ka jira dalkii weynaha oo siyaabo kala duwan uga hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan anagoo ah maxay jaaliyadda dalka Belgiumka ku nool فرين وحنا وجودنا دولة الصوماليلان وكي جرودك مدحونة دولة الصوماليلان فرين تعصوا إن أيدل كم بيلشم كأساس صارن فوقسك سيدا صارن فوقس الدل كإنجليزك دام الدل كبيلشم يعني ميدوي يوروب وحوي واحد نبى مكان صاير نجحنا سيدا دلالة آدي وحنا وجودنا دولة الصوماليلان إن أساس صارن فوقسك دل كبيلشم dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Belgiumku dhanka kale waxa ay bogaadiyeen golaha gurtiga Soomaaliland iyo go'aankii ay muddada ku kordhiyeen doorashooyinka waxa aanay soo jeediyeen in la taageero isla markaana la ixtiraamo golaha odayaasha Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan sida golaha gurtiga sheegay waxay ku beegan tahay doorashada Soomaaliya waxay mar walba maxaydaan ka soo horjeedno aynu deynaan meel la soo istaagan ama doorashada la qabsadaan marka haloo dhagan nuglaado golaha guurtida odayaashu waaweynaa guurtiga uga hadleen afhayeenka guurtiga uga hadlay maalintii dhaweytay uga hadlay gudoomiye Saleeman uga hadlay waxaan leeyahay golaha guurtida hal la maqlo oo maxay xilliga waxa la isku hayo waa laba bilood labada bilood maxay dalka yaan lagu maganaasay lagu carqaladeen maxay beesha caalamka waxba inoo may qaban dalka inaga soo dhisan oo inaga taxta zero ka soo saarnay top bangiina ilaa xagga ugu sareysay imika marna beesha caalamka wax allaaliyo waxay noo qabatay ma jirto أفريقيا لما سنة جبنا هوس بين كسب لما أفريقيا تكاس كورنا ونصعنا هوس ينوع علينا لو بلود ينا هوس ينوع علينا إلى وضع بلود هلقت هنا يسلو. واحد دور ينا حبل يو هرمرك أي دولة كتلا بسطاي حسبي تعالى هي كلية ودوين كله هرمرك له إسكودوبني له يدل كله هو جامين يو حدي أن هذا الخير سمع لنا لما أنت إنه تعيرون محافظين معارض بقى أنو كلا جرانو قرن كي قبيلك أيه وناكس دل ترى سمعنا لنا حكومة شريط سمعنا لنا بيشوف حتى من هنا لما أنت يو ونسوي دواننا يدو حتى نقول تشوفنا قدورياش أصحابته لما أنت يو وأنا تاجر سنة هاي وأنا مسكو دواننا هاي وأنا نقول تشرنا وحن كرو دوني هنا يلا حنبليه أنا حنبليه ودرو كله قرتنا واه قان كي تاريخ هاي مثل إسقاطي قاتين يجنا عادي أبان حنبليه يا وحنلا هاي بمهزنتين كيسين ماذا قاتين dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay inuu ilaaliyo qarannimadeeda horusocod keena wada jirkeena meel kasto aynu joognana aynu qarankeena meel uga soo wada jeedno horumarka wadanka ka socda gudaha iyo dibadda laga qayb qaato oo wadooyinka aynu wadnay aynu madaxweynuhu noo bilaabay ee geesinimada leh ee uu ku dhiirraday ee boqolaalka kilomitir yaan lagu khalayn nin walba jeebka gacanta geliyo nin walba waxa soo tar oo aynu wadooyinka iska dhamayno horumarkaas dadkan aragnay wax qabsaday qolo wala tacabkooda ku gaadhay qolo wala tacabkoodii wax qabsadeen nin waliba halku wax qabsado ayuu u tagay nin basar caaw beertay midhaha saamiyay nin waliba waxa uu goosto iyo waxa uu sameystay uu duleeyay jaaliyadda reer Soomaaliland ee dalkaas ku dhaqan ayaa soo jeediyay talooyin wax ku ool ah isla markaana shacabka Soomaaliland ku amaanay isku duubnida iyo wax wada qabsiga waxaana yiraahdeen sida maxamed yaasiin maxamed waxaan ku noolahay dalka Belgium magaalada Antwerp marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaaye iyo marwadiisa mudane Marwo Aminoris waxaan kaloo salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Seelici iyo marwadiisa waxaan salaamayaa shacbiga reer Soomaaliland guud ahaan ayaan salaamayaa وشعبك أفر إيرلبات فالسنادود السوماليland ما أنت هالك كسو قاعدين وشعبك جيسية إنه إلى شرنا بديسة وشعبك السببية إنه هرمركي سيسوق شقيه وشعبك كلية أي كسورة كشيء إنه ودوين ديستان وحكي لي سكتاي والشعب آدي قيمة ونقوهم بريانية ونقوم هالنقية وحنا ليه هالك كسي ودا قويمها تيداشة هالك كسي ودا هرمر أنت كبدن ayaad ku gaari doontaan gaar adduunyada sidaas oo miiraan ayaa lagu wada dhistay
wadamadan yurub ee lagu soo yaacay anagu maanta dhex taaganay ama tahriibaan ku nimaadna ama si kale ku nimaadnay waxa dhistay ee sida markaan taariikhda dib u eego waddankan deganay 1965 dadkeedu waxay cunayeen maraq iyo roodhi qaraxa ayay cuni jireen maraq iyo roodhi qaraxa maantana waxay awoodaan in qof kasta oo waddanka u dhashay uu yeesho dakhli u gaara maxay ku keeneen horumar warshad ma laha shidaal ma laha batrool ma laha wax kalena ma laha taas waa taxes barrier waxaan leeyahay waad gaadhaysaan adduunyo kalena ha u dhigtaagina halkaa kaga wada horumarka aad qabsateen iyo wanaagga dalkiina maanta ka muuqda iyo waxay xukuumaddu qabatayna waan ugu mahadnaqayaa waxay soo haray mucaaradka waxaan leeyahay mucaaradka idinka laftiguna ma xoojin waa wanaagsantiin laakiin midunbaa idin yara muuqdee waad gaari doontaan aan ku degdegin degdega ka daaya adduunyada qof aan wax tabcanini meel ma gaadho war intaa aad joogtaan waxaa kordhayaa tacbuun bay idin tahay waddankanna shaqa ma dhammaatay qofkeedu baa dhammaada shaqa ma dhammaanayso way oolasa ilaa yowmina diin waa la dhisaya waddanka laakiin maalin walba dadku baa tegaya idina waktigiina suga mishiga qaranka jamhuuriyadda somaliland oo sidaan jecelahay ay tahay markiisii labaad ee noogu yimaado dalkan aanu ku nool nahay ee belgium aad iyo aad ayaanu ugu mahadnaqaynaa maadaama aanu joogno meel ay ku yartahay saxaafaddu oo in badan oo fikiro aanu la haynay aanu halkaa kula aanu ku haddii bidkiisile nagu kaydsanaa waanan awood aanu weyn aanu ugu soo bandhigno bulshadeeda barnaamijkan maanta halkan aynu ku duubayno ee ah dalkaaga iyo dawladdaada si markaa aan waxu yaro kala iftiimiyo ko waxaan ku bilaabayaa maxay tahay dawladdu maxay qabatay maxay aanay qaban iyo weliba maxaa hortaagan waxa aanay qaban waxaan leeyahay dadka gudaha jooga inta badan ma ogaa waxa ay dawladnimadu tahay iyo wanaaggu wuxuu yahay laakiin waxaad dareemaysaa markaad bannaan uga baxdo waxa walwal badan lagu haya dhawaaqyada ka soo baxaya ee idinka markaa dhexdiina taagan ee aydan urahaynin halkuu gaarayo marka annagana soo gaaro iyo walwalku nagu reebo waxaan ku faraxsanahay waddanka si fiican ama in badan ay xukuumaddan maanta joogtaa wax ka qabatay iyada oo xukuumadihii horena mid waliba itaalkeeda intii ay qaban karaysay ay qabatay ayaanu haddana ku ammaanaynaa aanu ku bogaadinaynaa inay xukuumaddanina wax qabatay waxaan leenahay xukuumaddu wax bay qabatay admigana cidaan khaldami ma jirto dadku khaladaad shaqo kastoo la qabanaya waxay keentaa qallooc bay keentaa xitaa haddaad imika adigu istiraada gurodhis waxaa laga yaabaa inuu meela ka qalloocdo dabadna aad dib inuu hagaajiso waxa waajibkeedu yahay in loo tilmaamo la yidhahdo halkaa iyo waxaa iyo sidaa ayay wax ka qaldayiin laakiin waxaa khalad in asbaabo kale wax loo adeegsado oo qofku uu kala garo waayo qaranku halka uu ka duwayo iyo halka uu ka dhismayo oo ay kow saxaafadu ka yihiin oo uu qofku wuxuu qorayo iyo waxaanu qoraynaanu kala garanaynin haddii la hadlana oranayo waxaa wax la yeelay saxaafaddii xor tahay oo hadalkaa la diiday waxaa maalmahan dhawaanaha soo baxday sheeko ay dadku u bixiyeen weji ku macaash oo qofka yidhaha war waxaani way inaga xuyiin oo way inaga dumayeen inooga daaya la leeyahay wuxuu wax ka soo qaatay caynkan iyo caynkan waa meel ku macaash oo lagu baabinaya qaranimada waxaan leeyahay dawladdu wax wanaagsan bay qabatay waxa keliya inaga dhexeeya joogayaana waa qarannimada qof kasta ka jooga iyo ka iman doonaana mid kasta wuu tegaya waxse weligeed aan tegaynin waa qaranimadii somalilandnimada waxaan leeyahay ummadda reer somaliland ha loo dhug yeesho qarannimada ha loo dhug yeesho war dawladnimada ha loo dhug yeesho wax qabsiga ha loo dhug yeesho horumarka ha loo dhug yeesho waad aragtaan waxa wadooyin waddankii ka dhismaya isbitaalkii hargeysa oo beeshankii kasta yimaada la diiwaangeliyo weliba qaab electronic automatica lagu diiwaangelinayo war waa intaan halkan ku hayno waxaan leeyahay yaana idinka leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم أنا magacaygu waa maxamed muuse marka hore waxaan salaamayaa oo aan salaan hawada u marnayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siiraayo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici iyo golaha guurtiga iyo golaha baarlamaanka waxaa igu xiga waan kaloo salaamayaa walaalkayga dhalinyarta jamaal oo tv-ga u shaqeeya oo nooga yimid runtii safar aad u dheer oo dalka faransiiska ah yimidayna maaragtay dalka belgium oo uu rabo inuu barnaamij uu ka diyaariyo
oo ka waraysto fikirka dadka reer Belgium ee ku nool waddankan ee reer Somaliland markaynu arrimaha u sii dhaadhacno salaanta ka bacdi iyo dhammaan shacbiga reer Somaliland kuwa dibad jooga iyo kuwa gudaha jooga waan wada salaamaya waxaan markaan ka hadalno arrinta mawduuca ah aanu dhaadhacno dalkeeni horta waxa weeye dalkeenu isbedel badan buu sameeyay marka xaqiiqada laga hadlo aan waxba lagu darin isbedelka uu sameeyay maanta wax la qarin karo maaha waa wax cadceedaas oo kale إذا آدمنا ده سيدا ولا هايبا يجش جان وقتين وحوي قدرك أنت على نسبة الكوكب وحن قالوا إسنا هالك كسر عميا سفير كين سؤال لنا فردي بلجين محمد دعار ويسأل لفتي سونا شقة بلاقط وجد أنه كهذا إنه مدين بالكين ورت وعطل سوقي وحوي مركع إن أي نود كين ورت مرك هرم أنا وحن الله الله يقول صحابة جماله كم يباتي قول صحابة waxaan leeyahay macnaheedu inaga saxaafadna la hadlay ka mid baatiin sababtoo ah war saxaafadii maanta waxay noqotay tu cid walba ataagto cid walba weerar ku qaato xitaa aan kala garanin waxa uu sameeyo cadda ah dadkooga iyo dalkooga waxa weey qofku dhalinyaro in la sheego anagu ma diidanin laakiin waxa ceeb ah arrimihii maalinta dhowe ka dhacday markabkii Berbera waa dadku waxa weey bini aadam badan wax walba inaynu iska duubno uma waa in qofku wixii ceeb dalka u keenay uu ka gaabsado macnaheedu maaha inuu qariyo wixii runta ay xaqiiqada laakiin haddana dalkaaga ilaalintiisa qof walba mas'uuliyad baa ka saaran qof walba reer Somaliland mas'uuliyad baa ka saaran anu qolan saxaafadda waxaan lahaa waliba kuwa madax bannaan walaalahayo arrintaas haddii ilaahay raahdo bal dalka waynu wada leenahay ku dibad jooga iyo ku guuda jooga aynu wada ilaashan waxaan kaloo iyagana leenahay Somaliland maanta wax qabadkeedu intaas oo meeshaan ku wada joogno oo ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa reer Belgium waxaan qiraynaa in dawladdu wax qabto dariiqa maanta ay ku jirto dawladdu ee ugu weyn ee ugu dheer ee 400 kilomitir ku dhow Burco iyo isku xiraya iyo Gaabo waa labada gobol ee bariga isku xiraya ee Somaliland وطريق أي كل يوم ويدي دولتي نصامري كوري وطريق أي كل يوم وين دولتي كعان كعيا وده كان حقوق كويس دي العجاه هو بدل الدنيا كيلاي مدحوين أحمد محمد سيري وكل يوم وحان كفلا يا إنه دوان إنه طريق عصب نقول دونه كل ما هذا وما ضانا فايدة بدل كي وحان قالوا كبورين لها وما درير بالجنجار عن بالجنج دقيقة يوروبا والولي وين حاجة وين كوسنا حاجة إنه كقيد قاضنه horumarinta dariiqaas iyo dhismaha oo arinta waxaan leeyahay aynu arintaas ururino dadka Yurub jooga iyo dadka North America jooga dariiqaas aynu u dhameystirno dawladda dhinaceeda wax kala qaban lahayn waayo wax badan baan qaban karnaa haddaan runta isku sheegno waxa weeyaan dalkeena wax badan ka qaban karnaa dariiqyada iyo wada aragtaan wasaaradihii oo dhan 99% inta ay dawladda hadda maanta joogto ay timid dib waxa guryo cusub ay hor istooda dumisay لا بيجوا كنا تقولون دوامة كنا لا بلاد ما كسكيا ذلك لا وضع بلاد ما كسكيا والصومال استبدل وي بطار كنت من كان والله ودي تكون يتوان كيلو وانت كي مركب دور شرع حسب الكلية وهاي ما أنت أنا وانت لا بلاد كهر والكسر وضعتي واحد استبدل أنا قياسي كلمة مقصود ما حقيقة لا مقصود daawayaal waxaa gebi ahaanba intaasi nagaga eeg barnaamijkii dadka iyo dowladooda oo doorkan aanu ku soo qaadanay jaaliyadeenna reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Belgiumka waxaa barnaamijkeedii la socodsiinayay anigoo ah Jamaal Cabdi Ibrahim taliyeynta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waxaanu idin leenahay aniga iyo dhammaan hawlwadannada telefishinka qaranka Somaliland amaana Allah iyo sarag dambe xiiso leh